shaqo adag ma kaa saari kartaa faqiirtinimada? Jawaabtu waa maya. Waxay dadka badankood u qabtaan shaqo adag, haddana ay ugu dhintaan faqiirtinimo. Wax ka baro ninkan ka hor inta uusan waqtigu kugu dhammaan. Waxa aad mashquul ahaan kartaa noloshaada oo dhan, balse weligaaga horumar ma gaadhaysid. Mararka qaarkood dadka ugu badan ee had iyo jeer mashquulsan ayaa noqda kuwa ugu dhow fashilka. Hadda aan kuu sheego sheeko gaaban oo kuu iftiiminaysa mawduucan. Sanadku markii uu ahaa 1990, nin dhalinyaro oo la odhan jiray Li Ka-shing waxa uu shaqayn jiray 16 saacadood maalintii. Dad yar oo balaastiig ah oo ku taalla Hong Kong ayuu ka shaqayn jiray. Uu dugsigiisii ka tegay isagoo 15 jir ah markii uu aabihiis geeriyooday. Faqiirnimadu waxa ay ku qasabtay inuu u noolaado sidii uu u badbaadi lahaa. Waxa uu ka shaqeeyay shaqo walba oo uu heli karo. Alaabta ayuu qaadi jiray, dhulka ayuu xaaqi jiray, mashiinada ayuu hagaajin jiray si uu qoyskiisa u quudiyo. Waxa uu arkay in qof kasta oo uu ag joogo uu shaqaynayo, haddana aysan noloshoodu aysan isbedelayn. Laakiin Li waxa uu arkay wax aysan dadku dareemi karin. Waxay soo toosi jireen aroor hore, habeenkiina xilliga dambe ayay shaqayn jireen, haddana lacag ayay ka caban jireen. Ogaanshahaas ayaa bedelay fikirkiisa. Waxa uu go'aansaday in uusan ku koobnaan shaqada adag keliya, balse uu naftiisa horumariyo. Halkii uu mushaar keliya ku koobnaan lahaa, waxa uu bilaabay in uu barto ganacsi shaqada kadib. Waxa uu akhrin jiray buugaagta, waxa uuna baran jiray sida loo maamulo warshadaha. Lacag kasta oo uu helana wuu keydin jiray haba yaraatee. Dhowr sano kadib waxa uu bilaabay inuu furto warshad yar oo samaysa balaastiga. Inkasta oo uu warshadii furto, waxa uu la kulmay diidmo, tartan iyo deymo badan. Laakiin waxa uu fahmay farqiga u dhexeeya shaqo iyo leverage. Li Ka-shing markii uu 30 jir noqday, waxa uu ka mid noqday milyaneeradii iskood isku dhisay ee ugu da'da yaraa Hong Kong. Maanta hantidiisa waxaa lagu qiyaasaa $30 milyan, waana mid ka mid ah ragga ugu qanisan Aasiya. Ma ahan sababtu inuu ahaa mid ka shaqo badan dadka kale, balse waxa uu si ka caqli badan u bartay sida loo dhiso hantida. Haddaba tani waa midda ay dad badan necab yihiin in ay maqlaan. Mashquulka keliya ma damaanad qaado guul. Taa mararka qaarkood waxa uu waayaa heerka badbaado oo keliya. Inta kalena waxa uu dhisaa xorriyad, balse taas waxaa kala saari kara qofka mashquulka badan iyo qofka wax dhisa. Haddaba mashquulku ma kaa saari karaa saboolnimada? Haddaba jawaabtu waa maya. Haddii uu mashquulkaagu uusan u dhisnayn inuu kuu abuuro wax adiga kuu shaqeeya. Ilaa aad mashquulkaaga u beddesho nidaam xeeladeed oo u beddela tamar. Ilaa aad xirfadaada u beddeshid hab shaqeeya. Li Ka-shing ma uusan mashquulin oo keliya, wax buu bartay, uu kobcay, wuxuu dhisay wax ka cimri dheer dhididkiisa. Farqiga u dhexeeya saboolka iyo hodanka ma aha inta ay shaqeeyaan, ee waa nooca shaqo ay qabtaan. Mid waxa uu ku xayiran yahay badbaado, midka kalena waxa uu dhisayaa xorriyad. Casharka sheekadan, mashquulku wuu ku quudin karaa, laakiin aragti fog, nidaam iyo wax ku dhisan waqtigaaga bini'aadantinimo ayaa horumar dhab ah kuu keeni kara. Dad badan oo sabool waxay waqtigooda ku bixiyaan wax aan waxba u keenayn ama aan natiijo siinayn. Mashquulku wuxuu faa'iido leeyahay marka uu noqdo marxalad oo keliya, balse uusan noqon qaab nololeedkaaga.